nio haddaan dhaho markii laga hadlo arrintan developerska iyo AI-ga haddii indho kale lagu fiiriyo waxaa dhihi karaa AI waxay create garaynaysaa in aabaha meesha fadhi ku-dararka fadhiyo uu noqon karo developer bay create garaynaysaa qof maaragtay talented ah laakiin dhibsaday inuu maaragtay coder noqdo uu meesha fadhiyo oo maanta oo dhan ku mashquulsanaado bay macquul ugu dhigaysaa marka innaas haddii lagu fiirina waxaa macquula dadkao dhan inay developers noqdaan moogta si haddii loo fiiriyo roble waa developer marka waa salaamaya roble waa ku salaamay soo dhawo السلام عليكم دمانا خير السلام runtii mowduuc aad u xiiso badan iyo caawa ka hadlaynaa AI sidee looga faa'iideysan karaa waxaa aad aniga mar walba niyadeeda ugu soo dhacda aan u maleynaya anigo dhalinyarada iyo dadka Soomaalida ah inay ka jiifaan AI-ga iyo inay producer noqdaan waxaan u badannahay dhalinyarada inaan nahay consumers dhalinyarada badan aan ku arkay spaceska isugu imaanaya dhammaan waa consumers meme-coinkee kacayo investmentigee ku sameynaa iyo waxyaalahaas laakiin ma arkin dad badan oo ku fikiraya producer sidee loo noqdo AI-ga haddii aad fiiriso hadda cirkees kusii shareeraysaa Somali Majlisna experience aad u qurux badan runtii wana la wadaagay tools badana hadda soo baxayo oo la leeyahay ma u baanidba developer inaad noqoto si aad application iyo website iyo system iyo waxyaalahaas aad u samayso kaliya waxaa u baahan tahay AI prompting si fiican inaad u fahamto AI-ga sida context fiican loo siiyo aadna patient tahay sababtoo ah waxaa jira wax la dhaho AI hallucination AI-ga marka qaar qaladaad ay samaynaysaa inaad soo hagto inaadan 100% isku halayn guidance-gaad aad siiso laakiin haddii dad developer inay halkan ku jiraan in kale ma aqaano haddii ay jiraan gacanta way taagi karaan si aan ula socono I don't think so waan salaamayaa dhammaantiin runtii siduu Rob sheegay waa topic interesting waana topic loo baahan yahay waana ku raacsanayaa arrintaas oo Rob ka dhawaajiyo ah inaanay dhalinyarta Soomaaliyeed aan ku baraarugsanayn muhiimadda AI-ga uu dunida hadda waqtigan xaadirka ama eeradan aynu joogno uu ku leeyahay anigu waxaan xasuustaa haddaan halkaa ku darsado research baan akhriyay waa hore 2014 jaamacadda Rice University ay soo saartay marka ay kaga hadlayso artificial intelligence siduu u bedeli doono adduunka marka waxyaabahii berigaa ugu la yaqaanaa dhammaan waxaa ka mid ahaa researchka meelihii aad ii soo jiitay inay ku xadidayeen 2045ka inay samaynayso arrinta ah inay bedeli doonaan xitaa levelka ciyaartooga adduunka ciyaaraya inay isu bedeli doonaan robots ku shaqaynaya artificial intelligence marka arrintaas aad bay xilligaa aniga marka arrinta aad iyo la yaabadnay waxay ahayd inay arrintaasi dhacay ayaan maskaxdayda geliyey oo waxaan lahaa gaaladu waxay doonaan bay iska odanayaan laakiin muddo 2 sano kadib ayaan haddana waxaan shirkaddan Hyundai ayaa waxay soo saartay robot la yidhaha Asima marka all featureskii aan ka akhriyay researchkaas oo dhan buu lahaa sida inuu noqon doono inuu sameynayay maxaan ku dhahdayay jaranjarooyin korayo for example dhaqdhaqaaqyada noocyadu samayn doono marka waxyaabahaasoo dhan markaad eegtid waxaa markiiba markaa maskaxdayda kusoo dhacay researchkaas marka waxaan wallahi waa wax dhici kara because waxaana waxyaabo kale isoo jiiday waxaa kamid ahaa inay markaa laga sheekeynayay uu robotku researchku focus gareynayay wuxuu ku qiimeynayay adduunka marka la gaaro waqtiga 2024 in qofka shaqada dadka soo uga saaray ka sheekeynayay marka inuu sii saabay shaqada markaa inay noqon doonto for example oo kale qofkii inuu shaqayn doono isbuucii 2 maalmood 2 maalmoodna 15 daqiiqo wax ka mid ah uu ka shaqayn doono maalintiiba marka imagine yani siday u bedelayso adduunka 2020 wixii ka dambeeyay waxaad moodaysay in aad loo develop gareeyay marka solution badanna ay dibadda keenaan for example haddaynu ka eegno xagga academic oo kale researchka waxyaabaha ugu dhib badan weeyaan for example oo kale ay ardaydu sameeyaan inay raadiyaan research paperska inay akhris badan sameeyaan inay library karaan inay search gareeyaan Google scholarka tooliska kale which is difficult inay understanding deeply markiiba ka helaan topic ay doonayaan inay wax ka qoraan ama gaabkiisa inay ka fargareeyaan
ama literature reviewgiisa ogaada marka it takes time inuu ardaygu waxaasoo papera isu keeno resourceka noocaas u helo laakiin hadda maanta as we are speaking now haddaad eegtid waxa weeyaan it is a matter of clicking يعني bottom inaad ku heshid all the new versions ama latest versions ama latest paperskii la daabacay arrinta topica doonaysa inaad ka hesho weliba ku siinaya analysiska isagu kula analyse garaynaya macallin aad u baahnayn maxaan ku waana arrinta ay jaamacado qaati ka taagan yihiin oo iminka loo samaystay machine detectingka sida ardaydu kushikan iyo waxyaabaha looga fogaado marka waa arrin dhinacna positive-ka ah oo fududaysay howlo badan at the same time-na dhibaato ku noqotay dadkii sida meritkii iyo understandingkii lagu soo saari lahaa laakiin markaan mawduucan socdo waxaa basically horta AI-gu marka developmentkiisa la eegayo waxa weeyaan waa machine learning waxa weeye machine la train garaynayo waxayna ku xidhan tahay daatada la siiyey iyo intay la eg tahay iyo sida loo train gareeyey iminka rodla ka yaro dhawaajiyey marka qaladaad buu samaynayaa marka at the same time kama maarmo human expertiska oo inuu bini aadamku ku kordhiyo waayo haddaadan guide garayn karaynin ama daytada aad siinaysa aanay ahayn daatada wax ka baxsan la weydiiyo kama jawaabi karo marka he is only focusing datadan la siiyey unbuu ka jawaabi karaa ama uu wax ka dhihi karaa laakiin aad baa mahadsan tahay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo AI-ga ku jirta adiga maxaa ilaa hadda experience aad ka leedahay runtii anigu AI-ga kuma jiro laakiin backgroundkayga waa electrical power engineer marka jaamacadaha la dhiganayo taqaanaa waxaa isku jira communication engineer electrical power engineer noocaasa marka waagaasa waxa igu soo martay in aan wax IT-ga wax badan ka fahmo ama computer engineering marka horta fikrad ahaan xilligaas ugu dhashay aad baan interested ugu ahaa laakiin unfortunately waxaan u baaray dhinaca powerka laakiin at the same time hadda waxaan arkayaa dee faa'iidadiisa wuu soo maraa laakiin anigu ma isticmaalo laakiin waxaan arkaa in badan sheekadiisa iyo ayaan curious bahay marka dadka wax ka yaqaana ama expertiga ku aadan aad u dhegeystaa marka waxaan ahay cilmi dhaweedka ku urursada hadda aad baad mahadsan tahay xaaji daahir iyo akhyaarta kalena soo dhawaada meeshan waa meel aan iska sheekaysanayno aan AI-ga iyo qaabka Soomaalida uga faa'iideysan karaan dhalinyaradii oo Robles Sumarut sheegay in badanaa inaysan noqon dad gadaal fadhiya laakiin ay noqdaan dad horey soo fariista oo active oo arrintii ka qayb qaata oo wixii baara oo aan looga sheekayn laakiin ay faraha la dhex galaan wixii